وحلو بحي حجة الوداع حجدي النبي عليه الصلاة والسلام كسغوتي أمديس هذا الكيس أردن هي خطبته سي وكجدي مكة هي عرفة هي منى انت بوحي أهايا دردارا ومد الله دردار من النبي عليه الصلاة والسلام maalintii carafa u yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam ee sagaalaad khudbad ayuu ka jeediyey carafa khudbadaas khudbad aada u weyn bay ahayd khudbatulwadaacna waa la yidhaahdaa ummadda wuxuu kala dardaarmay dhiiggeeduu kala dardaarmay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada في شهركم هذا dhiigiina iyo cirdigiina iyo maalkiinu xaaraan ayuu idinka yahay oo qof walba muslimo qofka kale xaaraan buu ka yahay dhiigiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa sida maalintan maka la joogo ee beledkan xaramka la joogo ee bishan xaramka lagu jiro ee ashhurul xurum ah ay xaaraan u tahay saasuu kula hadlay wuxuu kaloo ka dardaarmay ribada wuxuu yidhi dhammaan xoolihii ribada lagu cuni jiray oo dhan kabtayda hoosteeday ku jirtaa wax ka soo saari karaa ma jiraan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ribo oo dhan wuxuu geliyey cagta hoosteeda waa kuma qofka ku dhaca wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cagta hoosteeda uu geliyey ee sidaa u xaaraantimeeyey inuu ka soo saaro oo weyneeyo waxaana ugu horeeyay buu yidhi ribada adeerkay cabaas ibn cabdilmuطalib wuxuu kaloo ka dardaarmay dumarka oo ragga uu kala dardaarmay oo yidhi dumarka waxaad ku xalaalaysateen kelimadii ilaahay waxaad xaq ugu leedihiin guryihiina inaanay cid aydinaan raalli ka ahayn soo gelin gogoshiinana cid aydinaan raalli ka ahayn inayan u gogin inta hadda idin sameeyaanna ay idin adeecaanna idinkana waxay idinku leeyihiin cuntadooda iyo kiswadooda yani waxay gashan lahaayeen iyo inaad macruuf kula dhaqantaan kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale mino ayuu ka khudbeeyey wuxuu kaloo ka khudbeeyey jamaraadka agtooda saddexda khudbaba wuxuu ku soo celiyey ummadda sidii uga welwelsanaa dhiiggeeda inay kala daadiso oo mar walba wuxuu oranayay axaadiistii uu yihi iyo dardaaranadii u yihi ma ka mid ahaa alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran gadaashay aniga ha ku noqonina gaalnimo iyo gaalo inaad noqotaan qaarkiin qaarka kale uu qoorta ku dhifto oo uu dilo ha ku noqonin ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada liyubaliq shaahid اlqaa'id qofka joogaa qofka maqan ha gaarsii wuxuu kaloo yihi allahuma hal balaqt maydin gaarsiiye risaaladii ilaahay iyo dardaarankeedii maydin gaarsiiye waxay yidhaahdeen waadna gaarsiisay rasuulkii allah wuxuu yihi kuwiina joogaa kuwa maqan ha gaarsiiyaan asxaabtiina waa kana wayna soo gaarsiiyeen xadiiskii waa ina soo gaaray allahuma fashhad buu yihi ilaahu markhaati ka ahow inaan gaarsiiyey oo qirteen inaan gaarsiiyey markii nebigu calayh salaatu wasalaam maka uu xajkii ka soo noqday wuxuu ku soo noqday dabayaaqadii bishii dilxija ama horaankii bishii muxaram wuxuu noolaa oo madiino joogay bishii muxaram iyo bishii safar xanuunkiisa waxaa loo tiiriyaa axaadiista qaarkeedna ku cad suntii ay haweeneyda yahuudda ah ay neefka ariga ay u qashay u marisay markii khaybar la furanayay sanadkii 7 mu'aamaradaas waxay ahayd haweeney yahuuda oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku marti qaaday inay neef ariga u bislaysay neefkiina waxay ka soo buuxisay sun ayay soo marisay markii xeeradii lasoo hordhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam hal mar buu goostay shanshadii uu jeclaa tagoogtii markaasay u sheegtay tagoogtu la hadaltay oo waxay tiri waan sumaysnahay oo waa laysoo sumay nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii wuxuu yidhi ka jooga hilibkan wuu sumaysan yahay
raggii cunay waxaa ka mid ahaa nin markiiba dhintay oo cudurkii xanuunkii u dhintay sunta ah nebigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka badbaadiyey waxaana uu daliilaha nebigu calayhi salaatu wasalaam geeridii uu u dhintay wuxuu caaisho ku oranayey intaanu dhiman kama aanan zuulin inaan dareemo xanuunkii neefkii aan ku cunay Khaybar suntiisii inay jirkayga ku jirto kama aanan zuulin inaan dareemo waxaan u malaynayaa hadda inay tahay waqtigii saacadayda ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dhameeyey xididku iyo go'ay lahaa taas waxay ahayd qodobka labaad waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii taqriiban 2 bilood uu joogay Madiina bishii Safar bishan aynu ku jirno oo kale aakhirkeeda ama horaankii bisha Rabiicul Awwal ayaa waxa ku bilowday xanuunka wuxuuna ku bilowday madax xanuun maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam janaaso raacay janaasadii markuu soo duugay ayuu ka soo noqday isagoo madaxa xanuunay isagoo madaxa aad xanuun uga hayo ayuu soo noqday wuxuu yimi Caaisha radiyallahu anha oo ummul mu'miniin xaaskiisii ah waxay leedahay iyadoo sheekada noo sheegaysa wuxuu ii soo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga oo madaxii xanuunayo oo aan leeyahay waa ra'saa yani madaxa ay xanuunaya la madax xanuunkayga ay badana markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri bay tiri bal ana ya Aisha waa ra'saa aniga madaxu aad xanuunaya markaasuu wuxuu ku yiri isagoo la kaftamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa inuu wixii farxad ah geliyo qof kasta oo la hadlayo gaar ahaan xaasaskiisa wuxuu yiri maxaa dib ay kugu haysaa haddii aad adigu xanuunsanayso oo aad iga hor dhimato intaan anigu ku dhaqo oo aan ku kafno oo aan kugu tukado oo aan ku aaso soo khayr kuma aha oo kuma wanaagsana markaasay waxay ku tiri hey waxaad doonaysaa inaad inta ii duugto aniga ama aad aasto aad galabtiina gurigayga intaad ku soo noqoto haweenkaaga mid ka mid ah aad kula caweyso saasaad rabtaa markaasuu qoslay nabigu calayhi salaam xanuunkii galabtaas qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo madax xanuunkaasu kama degin muddada waa la isku khilaafay 2 asbuuc miyay ahayd 10 cisho miyay ahayd asbuuc miyay ahayd muddadii xanuunkaasu uu hayay nabiga calayhi salaatu wasalaam asbuucii ugu dambeeyay markaynu ka soo qaadano noloshiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam 5 maalmood oo ugu dambeysay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay maalin isniina maalintii khamiista ayuu khudbay